Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Caawo waxaan qaadanaynaa faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo karootada. Waxaan ku qiyaasnay ilaa 13 faa'iido. 1. Waxay joogtaysaa karootada caafimaadka maqaarka. 2. Karootada waxay nadiifisaa dhiigga. 3. Karootada waxay isku dheelitirtaa aashitada dhiigga acidka ama basic balance. 4. Karootada waxay yareysaa cusbada dhiigga taasoo qayb ka qaadato xakameynta dhiigkarka. 5. Karootada waxay yareysaa dufanka subagga khatarta ku ah LDL oo loo yaqaano. Sidoo kale waxay badisaa dufanka wanaagsan ee HDL. 6. Karootada waxay difaacdaa burburka ilkaha iyo waxayna dishaa jeermisyada badan. 7. Karootada waxay badisaa dheecaamada dheefshiidka fududeeya sida caylayda insimada oo kaleeto. 8. Karootada waxay difaacdaa boogaha caloosha ee gastric ulcer loo yaqaano ama boog calooleedka sidaad u taqaano peptic ulcer. 9. Karootada waxay yareysaa gooryaanka caruurta haddii la siiyo caruurta gooryaanka wuu ka yaraanayaa. 10. Karootada waxay dheelitirtaa sokorta dhiigga waxayna fududeysaa maadada karootiin oo la yiraahdo. 11. Karootada waxay kor u qaadaa caafimaadka mindhicirka waaweyn kana difaacdaa kansarka. 12. Karootada waxay kor u qaadaa tayada caanaha hooyada. Haddii hooyada ay nuujinayso waa in ay karootada badsataa. Qasab maahan balse ahaan waa inay isticmaashaa haddii ay heli karto. 13. Karootada waxay kor u qaadaa tayada aragga waayo waxaa ku jirto maadada beta carotene loo yaqaano oo aad muhiim u ah in aragga aan ka wada faa'iideysano qudaarta ay ka mid tahay hantida Ilaahay nagu manaystay wadankeena waana muhiim in caafimaadkeena u helno. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeeni karootada. Wabilaahi tawfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.